السلام عليكم. waxaan rabaa maanta inaan halkaan maaragtay ka sheego jabkii soo gaaray dowladda Soomaaliya. waxaa la yidhi gaal dil gartiisana sii maadaama ciidan inta laga qabtay ciidankaas diyuurada la soo saaray waxay rabtaa ahaata ma propaganda ha ahaato laga yaabo inay propaganda tahay oo maaragtay ciidanku uusan ahaynba laga yaaba ciidan maaragtay maxaa dowladda ah laakiin sida lagu magacaabayo macnaha ay sheegeen haday arrintu saas u jirto in maaragtay ay jabtaa runtii marka waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo jabkaas maxaa keenay macnaha maxaa ciidanka macnaha muxuu ahaa guuldarradaas u keenay macnaha inaan ka hadlaan rabaa. marka xarfaanay share like subscribe welina maaragtay goolkayga waa taagan yahay oo maaragtay weli kun maaragtay ma gaarin marka kun igaarsiiya xarfaanay. waxaa waaye haddaan ka hadlo jabka soo gaaray iyo sababta waa muhiimaddu macnaha in laga hadlo sababta jab ku soo gaaray ciidan dhan oo dowlad ay soo dirtay in jab soo gaaro waxaa u sabab ahaa runtii horta ciidanka aan marka hore fiirino ciidanku horta sida aan daataba maarata ararta ku sheegay ma ahayn ciidan dowladda Soomaaliya ka wada yimid ma ahayn ciidanku waxay ahayn ciidan Jubbaland ugu horeysa ka soo baxsaday oo maalmahanba ka soo baxsanayay oo hadda fiidiyihii ugu horreeyay kan ka horreeyay aan kuu sheegay iyagoo soo baxsanaya oo ka soo baxsanaya isla Jubbaland imaanayana isla Jubbaland oo ciidan xamar ka yimid uusan inta badanba jirinba runtii wax yar inay yimaadeen waa laga yaabaa taliyayaasha iyo inay ka yimaadeen iyo xoogaa yar inay ka yimaadeen laakiin inta kale ciidanku wuxuu ahaa ciidan oo ka yimid muxuu ahaa reer Jubbaland oo ciidanka Jubbaland oo kuwii soo baxsanaya. marka ciladu maxay tahay marka cilada iyo sababta ambushka loogu sameeyo mar walba waxa la yiraahdo ciidamada Soomaaliya waxa waaye waa maaragtay discipline aan marka ugu horeysa ciidankii ma arkin oo aan sidii ciidan u dhaqmayaan u dhaqmaynin waxyaabaha ka mida maaragtay in maaragtay mar walba la soo weerarana waxa waaye marka ugu horeysa ciidanka isagoo xero ciidan jooga iska seexanaya marka ugu horeysa oo aan waardiye lahayn ciidan aan waardiye lahayn waa ciidanku marka ciidan iska seexanaya oo aan xeradii ay maaragtay deganaayeen ayadoo weliba maaragtay ii sheeg jooga goob maaragtay ii sheeg xad maaragtay iska seexanayo aan waardiye iyo lahayn iyo sahan iyo maaragtay waa dhibka ugu horreeya oo yimid waaye marka ugu horeysa oo sababta arrintaas keentay sababtoo anigu saacad isleeyahay ciidankaanu ciidan dagaal u diyaar ma ahayn runtii ayaga laftigooduna sida ay sheegeen runtii ayaga markii loo fiiriyo macnaha dhinacooda waxa waaye waxay dhaheen annagu Jubbaland duulaan kuma nihin Jubbaland kuma nihin laakiin waxaan rabnaa meeshii ka baxeen admis inay maaragtay aan buuxino laakiin Axmed Madoobe wuxuu u qaatay in lagu soo duulay waa isdiyaariyey laakiin nimankan dagaal diyaar uma ahayn ugu horeysa
waxa oo ma arkinoo ay marka hore u kala carareen anigu saan hadda isleeyahay macnaha ciidan feejigan horta ma carareen laakiin waxa waaye ciidan hurday ahaayeen saan isleeyahay anigu ciidan hurday ahaayeen marka ciidankaas hurda hadee maba ciidan feejiganba maaha waardiyana aan lahayn oon maaragtay xeradii wax waardiyeyna aysan jirin waan wax hadda ay sameeyeen ciidamada Soomaaliya oo dishibliin la'aanta ay ka mid tahay oo ah iska dhaaf adoo meel dagaal joogo goob dagaal joogo oo inaad dagaal filataba maaragtay ay dhici karto xeryaha caadiga ah oo meelaha nabadda ku yaala oo maaragtay muxuu ahaa aan wax dhiba aan maaragtay aan xataa aan malaysanaynin waxaa loo baahan yahay in xeradaas ay yeelato rondo habeenkaas iyo waardiye irda taagan labadaba inay dad isku beddelaan qaarna jiiftaan qaarna ay waardiye sameeyaan marka intaasba lagu maaragtay ciidankeena laguma hayo hadda ka hor qoladii al-shabaab dhowr jeer iyagoo maaragtay jiifa ay soo weerartay waxaa waaye marka halka dhibka meesha ka imaanayo waa meeshaas waxaa la ogaaday inay dad aan feejignayn inay yihiin ugu horeysa marka waxaa waaye haddaad feejignayn qofka cadowga adiga kuwa ah mar walba cadow waxaa la yidhahdaa qofka aad iska maaragtay dagaalka maaragtay iskaga soo horjeediin ama aad dakanuhu maaragtay idinka dhexeeyo cadow dadkaasaa la yidhaha ciddii rama ha u dhasheen ama isku dad ahaada ama si walba marka macnaha ciidanka cadowgaagu haddii uu og yahay inaad iska seexanayso oo aadan qof feejigan ahayn hadda waa ka faa'iidaysanaya marka midda ugu horeyso dhacdayna taasaan u malayna aniga inay tahay nimankaanu niman feejigan ma ahayn niman waxay ahaayeen habeenkii laga yaabay qaarkood inay qayileen oo iska seexseexdeen ciidanka laftigiisuna wuxuu u badnaa ciidan aan tababarnayn oon ciidan ahayn macnaha ciidannimo aan u tababarnayn niman qoryo la iska siiyey bis sida iyaguba ay sheegeen hadda aniga video kan ka horreeyan maaragtay ciidan aan lahayn muxuu ahaa aan lahayn number aan lahayn waa midda ugu muhiimsan waay ciidanka numberkiisa waa midda ugu muhiimsan waay sababtoo ah waxaa waaye ninka askariga ah numberkaas asaga wuxuu u yahay aqoonsi wax lagu aqoonsado waana waxa labada nin oo askariga ah oo kala number horeeya ka numberka horeeya waa wax uga maaragtay uga mudnaan badan yahay ama mudnaanta uu ka leeyahay xeryaha ama ciidanka markii la joogo iyo ciidanka dishibliinka ciidanka ninka hadduu hal number ka sarreeyo askariga kale waa inuu askariga kale salaan u taago marka ciidankaanu number maba lahaynba numberkan wax kale maaha waa tirada ciidanka waa numberku waddankaas ciidankiisa kow ka soo bilow intii uu soo jiray ilaa iyo inta hadda uu jiro macnaha hadba inta kusoo kordhaysaa numberka macnaha numberku waa saas qofkii hal number kaa horeeya waa qof macnaha mudnaanta kaale oo ah inaad salaan u taagto markaa ag maraysa xataa macnaha dishibliinka military waa saas marka ciidankan ciidan ma ahayn ah leh muxuu ahaa ii sheegeen number sida loo sheegaba waa dad inta tuuta lasaga soo geliyey dhalinyaro tuuta inta lasaga soo geliyey qori lasaga soo dhiibo marka tabta dagaalka xataa ma yaqaanaan runtii waa adaygaa wada maaha iyo xoogaa ma arkinoo maaragtay hunguriyaa wada maahan ama meesha wax ka heshiinaysa le inta mana ka helin ba dad sida la fiiriyo waxaa waaye axmed madoob asaa afkiisa ku shubtay wixii dhamaa afkiisa ku shubtay marka waxaa waaye ciidanku saasay ahayn mideeda kale ciidanku waxay u badnaayeen de ciidan dacarooday u badnaayeen runtii ciidanka oo kale oo ka hor imaanayena waa ciidan walaalahooda dacarad horta maba dagaalamo dacaradku waa u cararaan iyagu mar walba sembri waxaa waaye markii oo dagaal markuu dhaco way cararaan iyagu qoladan hadda puntlandan arkaa anuu arkay hadda ka hor oo dhowr jeerna videoyaal badan muuqaalo badan aan kusoo sheegay macnaha
markii somaliland dagaalayeen laba dhar iskorgashteen tuutihii iyo dharkii caadiga ahaa si hadhow markii tuutaha maaragtay laisku arko oo maaragtay sheekadu xumaato ay isaga bixiyaan marka nin ciidan oo dagaal usoo diyaargarooba maaha ciidankii tababarnaa oo soomaaliya xamar joogay oo maaragtay inta badan ay u badan yihiin dadka meesha degan wiyaha ay u badan yihiin hadday aalahaayeen meesha dabaa ka kacelaha runta ugu horeysa laakiin ciidankuna saasay ahaayeen ciidan markii horeba amar lagu siiyey inay dagaalamaanna ma ahayn marka waxa waaye siyaabahaasa maaragtay waa ugu bacnayd mideeda kale ciidanka soomaaliya haddaan ka hadalno ciidanka soomaaliya waxaa haysta waxaa waaye waxaa loogu dhiibaa dadka si maaragtay muxuu ahaa qabiil ah hadda ka soo qaad ninkan oo hadda haysta muxuu ahaa wasaaradda wasiirka gaashaandhigga ah wuxuu kasoo jeedaa muxuu ahaa wuxuu kasoo jeedaa raxan weyn degele miriflu kasoo jeedaa sooma saasuu meesha ku joogaa laakiin wax ciidanka uu ka yaqaana ma jirto waxaa loo baahan yahay ninka noqonaya wasiirka gaashaandhigga ninka noqonaya inuu yahay nin ciidan wax ka yaqaana at least ciidan soo maray laakiin ciidan soo marin waxyaabaha aan ku leeyahayna waxa waaye taliyihii dhammaa oo ciidanka ama wasiirkii gaashaandhigga oo ciidankiisii oo goob dagaal ku jira muxuu ahaa inta ka soo duuba video live usoo gelinaya tiktok waxaan joognaa magaalada Qansax Dheere
hadda kaas waxa maaragtay ii sheeg lama dhihi karo ninkaas ciidan lama dhihi karo sababtoo taas waa sir ciidan waaye haddaad cadowgaaga haddaa u sheegto tiraado halkaasaan joogaa io imaw ogow halkaasaan joogaa cadowgu muxuu samaynaa waa tiktok ay fiirsadaan al-shabaab kasoo qaad inta badan oo ambushka ay ku sameeyeen arrimahaas anigu aan ku eedaynaa macnaha inay arrintaasu jirto sabab markaan arkay isagoo youtube bahalka tv baa soo gelinaya muxuu ay sheegeen tiktok uu akaanku leeyahay lacag inuu sameeyo rabaa lacagta inuu sameeyo uu rabay waxaa waaye wuxuu soo gelinaa wixii ciidankiisii sirtoodii soo gelinaa waa sir ciidan waxaas sirta ciidanka lama rabo in la ogaado lama rabo ciidanku meeshay joogaan si life in loo ogaado lama rabo dikala cadowgaada waa ka faa'iidaysanaa ma yaqaano marka taas waana wasiirkii dhammaan gaashaandhig runtii fahamti marka arrintaas waa dhibka macnaha meelaha ciidanka soomaaliya uga imaanayo iyo nin loo dhiibayo iska graduation loogu dhiibayo hadda ninkan odawaa ay leeyihiin iyo kaasoo kale waxaa waaye I don't think inuu anigu khibrad ciidan leeyahay khibrad tababar waa leeyahay laakiin waxaa loo baahan yahay ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka inuu khibrad leeyahay khibraddaa muhiima khibraddu maxay tahay khibraddu waxa waaye wax ku bara waaye macnaha waxaad soo martay mar haddii wax kugu dhacaan oo wixii aad soo marto waxaad taqaanaa marka dambe saa u gaashaaman lahayd laakiin wixii ku soo marin oo theory abuu ku dhigato oo kaleeto ama aadan maaragtay dagaal rasmiyana aadan gelin oo muxuu ahaa ii sheeg aadan ciidan hogaaminin laakiin tababarkii aad soo qaadatay waxa waaye khibraddaa muhiima waa waxa hadda markii meel walba marka caalamka shaqo laga doonanayo lagu leeyahay experience ma leedahay khibrad ma leedahay iska dhaaf waxaa soo baratay weligaa ma ka shaqaysa arrimahan sababtoo waxyaaba badanoo waxaa jira qofka buugga kusoo bartay iyo qofka khibradda u leh oo wixii practical u soo bartay inaysan isku mid noqonaynin sababtoo qofkan wuxuu yaqaanaa wixii soo maray oo rasmi ah ninkan laakiin buugga kusoo bartay wixiis waa theory maaha practical maaha marka taasna laftigeedu aniga macnaha waa ciidanka soomaaliya marmar ambushka lagu sameeyo ama lagu soo weeraray xeryahooda inay taas ka dambaysana waa u malaynayaa taas iyo maaragtay ii sheeg hadee wasiirkii gaashaandhigii oon khibrad lahayn oo taliyihii oon khibrad lahayn oo waxaa jirta waagii maxamed siyaad barre nin oo maaragtay wasiir ah oo daktar in laga dhiga wasiir gaashaandhigga ninka wuu yaab runtii wuxuu yidhi aniga waxaan ahay nin daktara dad inaan badbaadiye maahane anigu naf ma dilo nafta inaan badbaadiyaan jeclaha aniga oo soo bartay inaan badbaadiyaan soo bartay maahane naf inaan gooyo ma soo baran aniga waxaa waaye ciidan marka ma ku fiicli sidaas baa xataa wuxuu yidhahay iga dhaaf waxaan waa loo dhiibay ayaan ka bacdi wixii waa soco waayeen waa markii dambe asaabis casiloo yiri bis aniga hawshan kuma jiro meeshii kaloo lii dhiibay ahaa laakiin meeshan marka qofka ciidanka waxaan ka wadaa in qof ciidan soo maray inuu yahay oo khibrad leh oo maaragtay sheeg weliba markaad jigooyinkaasoo kale qabanayso waa meelaha ciidanka ugu sarreeya waa hogaankii ciidanka waxaa loo baahan yahay qof ciidankii yaqaano inuu yahay taasoo kale in graduation qof loogu dhiibay waa laga fiican yahay runtii aniga sayla tahay ciidanka soomaaliyana kuma dhismayo marka waxa waaye waxaasoo dhan waa jababka soo gaara ciidanka hadda kanoo kale ka mid ah mideeda kale soomaaliya ma qalabaysno ciidankoodu ma qalabaysno hadda waxaan arkay helicoptero maaragtay ay meelaha wadwadaan oo diyaaradihii ciidanka ay leeyihin helicopter diyaarad maaha diyaarad laguma tilmaami karo helicopter waa waxaa keliya cadowgaaga markii aad dul tagto ay soo ridi karaan adiga iyo ciidanka meesha ku jiraba dhulka ay soo dhigi karaan waxba maaha taas wixii migagii iyo wixii maaragtay ii sheeg muxuu ahaa lalahaan jiray waagii dowladdu ay jirtay oo fiicneed macnaha ii sheeg maxamed siyaad bare dowladdiisi migaga la mig 21 maaragtay ama 21 maaragtay ii sheeg miga ala lahaa marka waxa waaye maaha diyaarada maaha waa laga yaabaa diyaarad in ciidan lagu qaado meel la geeyo intaas bisla diyaarad dagaalamaysa ma hataa midaas laftigeedu waa maalgeyn iyo maaragtay dhulkaas ku socodka in laga maarmo maahan wax kaloo meesha maaragtay ku hayso martaas marka waxyaabahaas una maaragtay aniga saan maaragtay anu aan maaragtay
ku eedeynayaa waxyaabihii ka dhacay muxuu ahaa raas kambooni hadda wixina wax qarsoon maaha kulley anigu waxaan islahaa bal wax hubso lan warar badanaa soo yeeraya moogta oo qolaba waxbay sheeganayso social media lasoo gelinayo lahaa annagaa horeyna annagaa saasa annagaa waa adiga sheekooyinkii maaragtay ii sheegeen videoga lagu raadinayay laakiin war dhaba marka warkii dhabtaa wuxuu noqday in dee ciidankii oo diyaarada soo saaraya ama ciidankii jubbaland ha ahaadeen ama muxuu ahaa inkasta u badnaa maaragtay ama ciidan ka yimid xamar ha ahaadeen laakiin waxa waaye baba bes war maa yaalla arrintuna waa barbagandos anigu arko macnaha wuxuu leeyahay aniga ciidankiiyo macnaha wuxuu samaynayaa ninka odaga uu kala gadaa moogta anuu ciidan soomaaliyeed ma rabo inaan wax yeelo idhaafa camal ma fahmino sheekada saas waaye macnaha barbaganda waaye dad badanaa waxay leeyihin waa gobu ninkaasoo waxa waaye wax fiican uu sameeyey laakiin ujeedadu waa saas macnaha mideeda kale wuxuu soo dhex maraa lagu leeyahay al-shabaab taasaa mashaakila ninkii la rabay inuu al-shabaab meesha ka maaragtay uu la dagaalamo ilaan wuxuu meesha ugu haystaba waa saas ilaan waaba dadka weli waa ninka al-shabaab ku tirsan yahay maaha nin maaragtay ii sheeg al-shabaab ka madax bannaan maaha maadaama ay u ogolaadeen inuu soo dhex maro waa arrin la yaab la waxa waaye dad dakana ka dhexeeya maaha weli al-shabaab ku tirsan yahay wuxuu u haystayna wax kale ma ahayne sheekadan maanta jirta camal uu maaragtay uu rabay inuu maaragtay mindhaa oo uu isticmaalo somehow I don't know waa arrin la yaab laakiin maaragtay anuu hadda ka hor laakiin dowladda talent iyo hadda ka hor muuqaalan soo duuban waxaan ku sheegay in haddii la rabo al-shabaab in laga adkaado in meelaha ay degan yihiin saldhigyada ay degan yihiin in dukaan dugta laga dhigo runtii macnaha dagaalada ciidanka waxaa jira waxa collateral damage marmar waxaa jira aadan ka fursan karin in maaragtay ii sheeg aad dhibaato geysato oo qof bini aadan dhibaato u geysato saasoo kale meelaha ay degan yihiin intaa ugu weyn jubbada dhexa ugu weyn soo ma jubbada dhexe in cirka inta laga weeraro kala haad lagu ridayo runtii inta hadba meel laga soo shabinayo maaragtay ii sheegeen maaragtay banaankaas meel hadba meel laga soo shabinayo ciidanku wuxuu leeyahay meel laga xukumo command center uu leeyahay command centerka ciidanka hadduu leeyahay ciidankaasu ma guul daraysanayo ilaan waxaa waaye isku xirkii isgaarsiinta weli socota soo marka waxaa waaye ciidankaasu waa ciidan weli jira waa duu command center leeyahay haddaad command center ka weerarin xeryaha ay degan yihiin oo dhan kulligood meel walbay ka degan yihiin waddanka oo lagu ogyahay hadda sida ceelbuur oo kale muxuu ahaa gobolka muxuu ahaa bay iyo bakool meelay ka degan yihiin meelaha lagu ogyaho rasmiga oo ay degan yihiin oo ay saldhig ka dhigteen halkaasaa hal mar waxaa loo maaragtay diyaarad lagu weeraraa diyaaraduhu yaa waaye diyaaradaha waxaa ku caawin kara waxaa ka mid a ciidan macnaha oo u heeloonba inay sameeyaan maraykanka ka mid a turkiga ka mid a waxaa ka mid a kenya ka mid a waxaas dhan waa ku caawiya macnaha diyaaradu waa maaragtay haddii diyaaradooda macnaha haddii la isticmaalo waa la samayn karaa intaasaa looga rayn karaa al-shabaab al-shabaab haddii mar haddii meel laga shabinayo waxay taraysa male waxba matara waxaa waaye mar walba ciidanku meeluu tagaa meelaha ka cararta meelow aad ka erday meel kaluu tagaa welina wuxuu leeyahay isgaarsiintiisa waa u socotaa oo saldhiguu leeyahay maxaa waaye middaas laftigeedu waa ciladda al-shabaab looga adkaa laayahay waaye iyo ninkan iska haysta laftigiisa oo maaragtay hadda saan aragnay saaxiibka laaba isaga laakiin dan lagama galeen oo dhinacan waxaa laga soo geli lahaa ciidan laga soo gelin lahaa maaragtay shabeellaha hoose laga soo gelin lahaa halkaasaa ciidan lugtaa laga soo gelin lahaa korna waa laga garaaci lahaa markay soo kala firxadaanna madaxa laga toogan lahaa mid walba soo baxsadaase intaas ku dhammaan lahayd laakiin awhe wixii tabti yaqaanaa la rabaa wasiirka gaashaandhigga ma yaqaano taliyihii ciidanka aarontiga inuu yaqaano arrintaas la meesha waxaa waaye waxba layskuma reebanayo mugta cadow waaye dadkan aad maaragtay cadow ku ah
cadowgaagii marka inaad saa uga rayso waa inaad cadowgaagii aad meesha ay saldhigga ay ku leeyihiin waa inaad maaragta aad marka ugu horeysa ka beegsato taasaa la sameeyaa adduunka caalamkana soo annagana it's not different maxaa waaye inaad haddaad rabto inaad ka rayso haddaad rabto laakiin inay meelaha kugu joogaan marba dhinac kasoo shabay meel kale aadeen markaas maslaa wax kale ma marka hadalka hadda waa badiyey waa kusii maaragtay waa kusii dheeraaday maanta intaasaan usoo galay muxuu ahaa haddii aad ka heshay videoha ama muuqaalkan anugu videohana isticmaalaa videoda waa maaragtay waxa la duubo moogta muuqaalkan haddaad ka hesho like share subscribe commentiga wax ka baqina commentiga wax alla waxaa rabtiin ood qabtiin soo geliya marka intaas ugu roonaada haddee goolkaygina weli waa jira saan qaybta hore buu kusoo sheegay kunka maaragtay gaarsiin harfaani marka waxaa waaye sidaas iyo nabadgelyo iyo noole kurante